waxaanu ku soo jirnay walaalayaal sida la socoteen inaynu ka digno isu tilmaano khataraha uu leeyahay iyo dhibaatooyinka uu inagu hayo shaydaanka iyo colaalkiisa cadowgeena ilaahay inoo bayaaniyay ee si faahfaahsan oo waafiya ilaahay u faahfaahiyay fi kitaabillahi subxaanahu nebiguna uu ku dheeraaday cadaawadiisa inaynu isu tilmaano meelaha uu inaga soo galayo si aynu meelaha u gufayno xeeladaha u dhigto iyo dabinadiisana inaynu isu tilmaano si dabinkiisa u kicinno oo aynaan ugu dhicin hore waxaynu uga soo hadalnay dhowr sababood ama dhowr xeeladood ama dhowr khiyaano oo inagu gaado maantana waxaynu tilmaami doonaa asaaliibtiisa ta ugu khatarsan een isleeyahay waa ta uu muslimiin badan ku gaaday ayaynu tilmaamaynaa waa maxay waa at-takhwiif waa cabsigelin waa bajin waxa ugu badan uu inoo isticmaalayaa waa inuu ina cabsi geliyo cabsidaasi way noocyo badan tahay diinteenna qiimaha badanna qaybaheedoo dhan way sheegtay waxa ugu horeeya islaamnimada ayuu kaa bajinayaa waxaa nabigeenna ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ina ashayطaana qacada libni aadama biatruqih shaydaanku wuxuu u fadhiistaa aadamaha dariiqyadiisoo dhan ayuu u fadhiistaa qacada lahu fii dariiqi alislaam wuxuu u fadhiisanayaa dariiqa islaamnimada oo odhanaya atuslim watatruku diinaka wa diina aabaa'ika wa ahlik warma maantaad adigoo intaa leeg aad islaami oo diintii aad ku soo nabad iyo caanamaashay ee lagu soo badhaadhay ee aabbayaasha iyo awowyada aad ka tegi doontaa hadduu caasiyuu islaamo hudha war nagala tagu dabeetana aad shahaato haddana wuxuu istaagayaa dariiqulhijra bal waayo islaamka iska hayso ha hijroonin waayo hijradu waxaad ka tegaysaa dhulkaagii iyo samadaadii iyo dadkaagii dabeetana qariib baad noqonaysaayo faras lagu xidhay geed oo intuu yar socday la soo dhufan doono ayuunbaad noqon doontaa ma fogaanayside war ha hijroonin hadduu ganafka ku dhuftay dhawan hijroonaya wuxuu istaagayaa ta saddexaad oo ah jihaadka ha jihaadin haddabo waayo jihaadku waa min aljahdi waa dhibaato waa lagu dili markaasaa dhiman markaasaa xoolahaagii la qaybsan xaaskii la guursan doonaa war ilaahay ka baqo ha jihaadin maalinta uu khilaafo ee saddexdaba ku diido ayaa nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu u qorayaa inuu ninkaasi ahlu janno yahay qadiyadda noocaasi waxa weeye dhammaan wax alla wixii fadiilo ku ahaa iyo badbaado ku ahaa ayuu kaala dagaalamaya ta ugu horraysu ilaalinayaana waa inaanu qofku islaamin waxay ku dhacday abu aalib sida taqaanaane caanka abu aalib nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh adeerkii buu ahaa waanu jeclaa aad iyo aadna uu ugu dadaali jiray deetana aakhirkii ugu dambeeyey shaydaanku wuxuu ku yidhi haddaad islaamto awowyadabaad ku caddaynaysaa inay dalaal ku sugnaayeen cabdilmudalib iyo haashim iyo cabdimanaaf iyo qusayi iyo raggii ragga ahaa ayaad ku caddaysay inay xoolo ahaayeenoo xayawaan ahaayeenoo ay wareersanaayeen sidii buu ku allaystay oo shaydaan iyo khatarihii dad badan oo islaami lahaa waxay yidhahdeen ehelkayga ay dayrinaya xoolihii baa lay diidaya dhulkaa layga joojinaya waan garanayaa diintan inay xaq tahaye laakiin waxay ugu xeeran arrimo badan qaarkood wuxuu ugu baqtiyaa kursigaa laga qaadi waxaa ka mid ahaa boqorkii ruumaanka qaysar nebigaa waraaq u diray su'aalo badan buu weydiiyey colkii halkaa yimi ee quraysh ahaa wuxuu gartay inuu nebi xaqa yahay wuxuu ku talagalay inuu islaamo baarlamankii buu shiriyey albaabaduu soo xidhay runtuu u sheegay way dideen albaabadii bay ku dideen waxay arkay albaabadii oo xidhan markuu arkay inay dideen buu yihi kuwanaa kugu kacaye bulshadiina maxaad u malay walle kursigaagii iyo dowladnimadii meesha waa ka baxay maasuu yidhi fadhiista shaydaanka iska naara waan intijaabinayey shaybaadh bay iga ahayd waxaan eegayey si aad diinta ugu adag tihiin khayr allah idin siiyo waa meel fiican baad markiiba u sujuudeen nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka doortay jannadii ilaahay kursiga keligii maaha aad ba u badnaayeen waxaa ka mid ahaa nin la yidhaahdo acshaa hamadaan oo gabyaa ahaa gabyaa aftahana
wuxuu damcay inuu islaamo intaanu islaamina gabay dheer buu tiriyey oo nabiga iyo diinta ku amaanayo quraysh baa ogaatay col baa loo diray ka gaadhayuu gaadhin ninka Acsha la yidhaa haddii Muxamed helo idaacadu weyn oo soo korodhay noqonaysaaye ka gaadha col baa helo way fadhiisiyeen waryaa ma aynigana islaamaysaa haa waar Muxamed ribadu diida sida awalba ribo kuma shaqaysan jirin Muxamed wuxuu diidayaa sinada oday weyn baan ahayo anoo dhalinyaro abana danka lahaan jirin sino iga daaye waar Muxamed khamrigu diida masaasa haa ka waxba igu yar harsan aan sanadkan ka soo dhargo sanadka aan ka soo yar hirqado sanadka dambaan islaami doona dib u laabtay khamrigii buu isii sanadka ka soo hirqo sanadkiiba kamuu soo laabanay sidii ku geeriyooday wal ciyaadu billah marka shaydaanku wuxuu hor istaagayaa waxa ugu horeeya islaamnimada haddaad islaamto marka horeba islaam ahaydna wuxuu ku diidayaa waxa la wixii horumar ahaa hijradii uu ku diidayaa bal wuxuu ku amrayaa in loo hijroodo dhulkii laga soo hijroon lahaa wadinka arkay waxa dadkeenni xagga u qulqulay ee dhul gaalo oo aanay diin ku nashrin karay oo aanay nolol kaga noolaan karay oo ubadkoodu aanay diin yeelanayn waxa loogu sii qulqulaya wadarkaysa haddii taa laga diidana inuu qofku diinta ilaahay hirgeliyo oo dacwada iyo al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar iyo jihaadka wuxuu koorey kaliya baa diinta leh war diinta waa loo sameeyay haddii nin diin caaya Allah hadasho ma kaliya baa diinta leh mid taaruk salaada Allah hadasho war ilaahay wuxuu yiri alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum naftaada ku filow xaadiga dadka kala ka galay wuxuu kala dagaalamaya dhammaan waxa la wixii darajo ah ee xagga alla ku dhaweynaya inta waxa dheer walaalayaal wuxuu buunbuuniyaa ciidankiisa ayuu buunbuuniyaa wax kale ka soo qaada waxa aad iyo aad u la yaab loo doqoniimo ah dad badan oo muslimiin inay dariiqada shaydaanka hayaan oo intay gaalada buunbuuniyaan farahooda badiyaan ciidankooda wax la yaab la ka dhigaan awoodahooda dhaqaale iyo awoodahooda military inay cirka gaarsiiyaan muslimiintana zero ka dhigaan waana shaqadii shaydaanka shaqadiisu waxa weeye inuu muslimiintana liido oo bajiyo oo ka dhigo wax yaroo dul saaran xeedho oo la halqafayo mid loo qaadanayo inma dhalikum ash-shaytan yukhawifu awliya'a ay yukhawifu bi awliya'i ciidankiisu kugu bajinaya fala takhafuhum wa khafun marka ninka Soomaaliya ku dhaamiyaa gaaladu waa nooca yaa iska caabi kara yaa dalka xoreysan kara yaa ka hortay kara waa buuq waa garri uu afuufaya shaydaanku isagoo hadli maayo waa lagu hadlaya tamuhimku waxa weeye in lagu jawaabo fala tahinu wala tahzanu wa antum al'auna in kuntum mu'minin ilaahay wuxuu leeyahay haw dabcina hana umurugoonina idinka gacan sareynaya waa hada mu'miniintii maalinkaanad muumin gaadhin eed wali islaam iyo muslim ku wareegayso ee ana darajatul iimaan gaadhin waa baqi waa lagu bajin laakiin maalintaad muumin noqoto waxa weeyaan cidna dhagu dhigi maysid ilaahay mooyaane cid kale ka baqan maysid qodobka labaad walaalayaal ee aad iyo aad ka wada u saara waxa weeye at-takhwiif min al-faqr wal-faqa wuxuu ka bajinaya baahibu ka bajinaya wuxuu kugu cabsi gelinaya faqri iyo busaarad wuxuu kugu cabsi gelinaya wax la'aan iyo saboolnimo taasi waxay keenaysaa arrimo badan oo inagu dhaca oo inuu aragno waxa ugu horeeya kow inaad noqoto qof bakhayla tii horena maxay keenaysay inaad noqoto fulay والبخل والجبن طبيعتان من طبائع الكفرة طبيعة الإسلام ما فلين ماذا إيا بخيل نمضو وإسلي ساوقت با إلهي وحكوت المامي قال هذا إن يهيم فليو بخيلنا يهيم إلهي وحكوت المامي يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم ومنافقين يهود معون إلا أنتم أشد رهبة في صدور من الله وحلت المامي إني فلين نمضو تهي دنبي يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار قال هذا سلاشان تبدأ وجديننا ومن يوليهم يومئذ دبرا نين كمان انت تستبقى
ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة لبا لو قل يا هنا يشستان وأن أك بدلنيا إياني أنت علك يا رادع علك لكو بيريا قفك عدة أنا هين لبضا جهنم يكواريا وحين تادر ولا ليا نبي يقول لبضا تبع عضوضة بخلقة بخيل لماذا يفلين لماذا وكعود بالله سنشري وأنا لبا أنك لهارين oo waxa la yiraahdo fuleynimadu waa tabaqaynimada keentayo way faqri uu ka baqanaya gaajadu uu halka ka soo eegaysa teetana sakada wuxuu u diidaya masaakiinta caawintooda u diidaya qaraabo xiriirinta u diidaya faqri buu ka baqanaya xuleey waxana la wareegayaan masaakiintu ayuu baa kugu hari doona inta waxaaga kurtaan ayaad noocooda noqon doontaa waa jubni waa fuleynimo nabigu calayhi salaatu wassalaam habeen kasta iyo subax kasta wuxuu ku ducaysan jiray lix arimood ayuu ka magan gali jiray ilaahay allahumma inni a'uudu bika min al-ham wal hazan ilaahay oo warwariyo wal bahaar baan ka magan galay wa a'uudu bika min al-bukhl wal jubn ilaahay oo fuleynimo iyo bakhaylnimo aan ka magan galay wa a'uudu bika min al-'ajzi wal kasal awood la'aan iyo wahsina waan ka magan galay wa a'uudu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal deyntu inay iga qaalib noqoto iyo qaanta iyo amaahdu oo aan kala bixin kari waayo iyo in rag muqooniyaan oo la iga xoog roonaado ilaahu lixda arimood baan ka magan galay marmarna waa 8 ba dubur salaad kasta gadaasheedana intii in leegu ka magan gali jiray waxa kale uu ilaahay ka magan gali jiray markuu seexanayo habeenkii markuu seexanayna intii buu ku celin jiray dad badani waxay sakada u bixin laayeen haddaad bixiso wax yar baa lagu kala tagi dad badani waxay qaraabadooda u xidhiidhin laayeen haddaad wax yar bixiso wallahi wixii yaraabo kala yaacaya waxa la yaab leh dad badani waxay saluugeen inay xalaasha shaqaystaan wuxuu shaydaanku dhagta u saaray aakhiru samaan baa la jooga xalaashu way daba yar tahay ninka damca xalaal baan ku koobnaanaya gaata ayaa xaadanaysa waar bii waaye aakhiru samaan baa la jooga إلهنا دمجوا وانافا وارث كحن توبصو إن الله غفور رحيم تكنتين مالك أمضى لقرطو أو مالك جارك هالقرطو أو عبء الآمن ويا والتخويف من الفقر شيطان هو حين غفري أنت صباهيات وعن الله بحني تذكرني هره وحير باك فين شري قال لي أنا ما أنت نور لا أفرت بين الشباب ووردينا ولينا فريق ما قدنا نول بوا عبنايا كوجم مالك بدنا داس وريستان وحكاجة شيء كينيا وحضيات كيف فقير كأمر كذا وريستنا إثنين نغمدي باو دارن هذا الكيس مكوهضيا حالته إنه حالستهاي إنه الرمو حيه إنه بسارة الأول بحدي إنه كريه كرنعي الحمد لله كورنايا واسكال لدنا هيو إلهي وأنا وناجي أدبو يري وحولا ليال cabsida faqriga laga baqanayaa waxay keentay dad badan inay ku fekeraan sidii gaalada u fekeraan in ubadkaba la xadido waxana caruura lama kala maamuli karo lama kala dhaqaaleyn karo looma hayo mustaqbalkoodii yaa tacliintoodii haya noloshoodii waar iska yareeyo oo dhowr qof ay inagu filane waxa weeyaan aynu iska ilaalino waxay keenaysaa waa iimaan la'aan waa wixii keenay gaaladu inay ubadkooda laayaan نبينا وحده المامي عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود وارقبنا دش بدن غير كذا تعال قرصدا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة شيطان هنا دان كروك هذا إبريقيا أروح أسكت لا يرى نبينا وكل هذا حليه هاي بدي وحلا يبلغ عجيبة قار كتبة وحنا من سنين بين الله وحرثاقه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها قار waxay ku kaliftaaba inay yiraahdaan gaar ahaan dumarka haddii dhashu kugu badato quruxdaadi iyo jooggaagi iyo qotonkaagi ayaa meesha ka baxaya dhasha badani oo ku dilaysaaye iska yareeyo aad sida u qurux badnaato hal su'aalin weydiinayna haddaanad waxba dhalin ma waaraysayo sida inan ma ahaanaysa sabriba soo qolaamaysayo aad habaroobaysa islaamoobis qaar waxay keentaa oo xaqiiqo ah inay ilmaha naaska ku duwi waayaan وحقي وكل هاي رهدان والله وحويان قروح ذي دوا ماشى كبحيسة دان يرنا ماشى كبحيسة مساصد بانسكسين هي والخوف من ماذا
foolxumay ka baqanaysaa xaqii dhamaaye uu ku lahaayay ilaahay u siiyeyna meesha uu diidaysaa walciyaadu billaah waxa soo raaca odayaal badan oo mas'uuliyiin hablow ah inay ku geejiyaan yiraahdaan keebaa maal badan keebaa dhaqaalo badan ninkaas siin mayno ma dhaqaalo badna waa khawf min al-faqri waa in inantii loo arkay inay dhaqaalo tahay in loo arkay inay kasab tahay dhalinyaro badanna guurkaba waxa uu yaqaan takaaliif sheekadii gaaladayna soo gashay wuxuu guuraan loo diyaar garoobi oo aan jaamacad looga bixin oo aan loo shaqaysanin oo aanad guri dhisanin oo aanad qalab dhex dhigin oo aanad intaayo tolka la siiyo intaayo islaanta la siiyo intaasoo sidaa la yidhaa aanad haynin bannaankaasaan joogayahay baalku xaraga la'aan ku geli maaye halkaa higa nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu dhigay shardi aad u kooban man istadaaca minkum albaa'a falyatazawaj qarashkaa yaree lagu gabadha la siinayo ninkii helaya ha guursado shaydaanku markuu guurka iyo xalaasha kaa bajinayo xaaraanta kaa bajin maayo uu fudaydinaya qolooyinka meelaha joogay gaalada ah iyaga waxa buu yidhaahdaaba guurku waa dabar xorriyaddu kuu diidaya takaaliif baa imanaysa biil baa imanaya adoo gudan karaya dantaada oo qiimo yar ku gudan karaya maxaa sallad lagu daba qaada iyo carruurku daba qaylisa iyo guri lagu goglo iyo maxaa la yidhaha kira iyo maxaa waxaa kugu wataa har iska danayso shaydaan yukhawifu min haada waxaasoo dhan waxaa ka daran marmarka qaarkood wuxuu sameeyaa shaydaanku asaaliibtiisa khatarta ah cilmiga shareecada iyo barashada diinta ayuu kugu adkaynaya waana dhacdaa in badan wuxuuna waad weynaatay carabkaagii baa weynaaday waxba imka ma baran karayside iska joogo sidaada jaahil u ahaw waa takhwiif jaahilnimadu ku jeclaysiinaya haddaad 80 iyo 90 tahay waad baran kartaa haddaad ka yar tahayna waad baran kartaa jahliga waad iska qaadi kartaaye shaydaanka labada dhagood ka furayso asaaliibtiisa waxaa ka mid ah khatarta ah dadka qaar buu ku yidhaa qur-aanka kariimka ah ha qaybin waayo haddaad qur-aanka qaybto dembi badan baa lagu sheegood ilowdo berri baad ilaabi doontaa nebiguna waa kii yidhi markii lay bandhigay dunuubta ummadayda waxaan arkay ninka aayad la baray ee aayaddii ilaabay dembiyada waaweyn buu ku jiraa shaydaankii baa isaga kaa dhigay ku wacdiyaya dembi baa iman doona ilaahay baa kala dhimanaysaa ilaahay baa ku nacaya ha isku qaybin qur-aanka kariimka oo yaa kuu xaqiijiya inaan ilaabi doono oo ilowgu laba nooc wey ilow qadariyo iskaga ka yimaada iyo ilow gaabisood akhriyi weydo ka dembiga waa kaad akhriyi weydo ku tukan weydo ilaalin weydo laakiin haddii qadar kugu dhaco sidaa ku ilowdo wax alla waxa dembi yeelayna ma jirto waxyaalaha ugu daran waxaa ka mid ah dadka qaar buu wuxuu shaki ka geliyaa toobadaba wadaaddaa tiraa atuubu ila allah allaanu toobad keenaya beenaalaad qalbigaaga waxaa ku jirta aad berri samaysid marka haddaad tiraa atuubu ila allah been baad sheegaysaa ha toobad keenin ilaahay been ha u sheegi ilaahay qalbigaagu daalacanaya towbaddii buu kaa waaninayaa laakiin kullu haadii waa min asaaliibi shaytaan walaalayaal waxyaalaha ugu daran inugu sameeya waxaa ka mid ah qolooyinka balwadda ku dambeeya hadday qaad tahay hadday sigaar tahay hadday ka sii daran tahay hadday xumaan tahay wuxuu u sawiraa xaalad kale ka inoogu darani waa qaad haddaad baalkan joojiso ma dumarkaad la fadhiisan doontaa xaggee baad wakhtigan ku qaadan doontaa waayo maxantaad calaashan doontaa haddii meelihii raggu ku haasaa weeyeen iyo mafijada lagaa waayo soo hor noqon maysid maalaa yacniya oo wax la kala macaashay aan ogeyn oo meel la isla marayo ogeyn waa raggaaga ha ka dhex bixin yuu kaa saari laakiin waxaanu ogeyn caalamkii oo dhan inuu ka soo xidhayo gurhunguri ku xidhay kanuu caalamkii uga dhigay haddii laga baxana wuxuu qaadanayaa inaan meel kaleba jirin raggii ka baxayna waa garanaya marka waxaan leenahay walaalayaal wasiilada ugu khatarsan ee shaydaan isticmaalaa waa takhwiif takhwiifka ugu daran inuu ugu sameeyana waa maxay التخويف من تطبيق كتاب الله سبحانه كتاب كائن نطبقناه oo dawladaheen iyo maamulkeen iyo maxkamadeena ku dhaqno waxay naga hortaagan xuquuq bay naga hortaagan gaalada ayuu ka baqanaynaa haddaynu kitaabka isku dhaqno nimankaas ayna soo weeraraya meeshaba way naga qaadayaan haddaanayna soo weeranina cunahayna qabanayaan oo dhaqaalaha naga tarayaan qaar badan oo la sheekaysato madi waxay ku oranayaan xilligeedii ma joogno oo muslimiinta awood ma laho haddaynu xagga u dhaqaaqno layna arki maayo
waxaanay garanay kownka yaa maamula kownku yuu gacantiisa ku jira ilaahay subxaana ma ilaahay baa ka awood badan mise iyagaa ka awood badan halkaas su'aalay ka jawaabi kari waaye allah baa ka awood badan ninka ilaahay ku tiirsadaa cid kale uma baahna marka waxaan leenahay waxaasoo dhan waa cabsi gelin shaydaan unbaa ina khuuqinaya inaguna run baynu moodin caruur cabsiis buu nagu noqday sidii caruur cabsiiska ayaa laynagu cabsinaya aynu shaydaanka garanaya xeeladihiisa waxaan ku soo gabagabeynayaa walaalayaal shaydaanka kaydkiisu waa daciif ilaahay baa inoo sheegay inna kayda shaydaani kaana daciifa shan tallaabood oo kooban ayaa gebiga shaydaan lagaga adkaada waxa ugu horeeya lagaga adkaadaa waa alisticaada in ilaahay laga magan galo acuudu billaahi min ashaydaani alrajiim shayga labaad ee lagaga adkaadaa waa bismi illaah shaydaanku haddaad bismi illaahi tidhaa wax alla wuxuu furayaa ma jiro albaabka bismi illaahi lagu xidho ma furo shayga bismi illah la yidhaah ma soo agmaro ilaa iyo nebigu gaadhsiiyey ninka xaaskiisa markuu u galmoonayo hadduu yidhaha bismi illaah allahuma jannibna ashaytaan wajannib ashaytaana maa rasaqtana in ilaahay wala fiican siinaayo waxaa soo raaca qiraa'atu lqur'aan waxaa nebigu yihi iqra'u lqur'aan fa ina ashaytaana yanfiru min albeyti aladii yuqra'u fiihi lqur'aan war qur'aanka akhriya shaydaanku waa ka didaa guriga lagu akhriyo qur'aanka marka guriga in qur'aanka lagu akhriyo shaydaanba waa ka firdhanaya shayga afraad uu kaaga cararaya waxa weeye waa salaatu ljamaaca salaada jamaca haddaad ku tukato shaydaan waa cararaya nebigu wuxu uhi maa min halaaثatin fii qaryatin walaa fii badwin laa yuqiimuuna aljamaaca ila istaxwada calayhim ashaytaan saddex qof oo tuulo jooga ama miyi jooga hadday jamac oogi waayaan shaydaan baa ka wareegayaba hadday jamaca oogaanna shaydaan soo agmari maayo shaydaanku yuu ka odhan bartan ku tuko qolkaaga yar iyo meesha mehradda iyo meeshii la joogay iyo makhaayadda halkan iska tugo kartoo yar qaado yuu ka odhani waa sheeko shaydaan qodobka ugu dambeeya waa sujuudda nabigeennu wuxuu xaqiijiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh ina bna aadama idaa sajada tanaxaa canhu shaydaanu wabaka insaagu markuu sujuudo ha noqoto sujuuddii salaada iyo sujuudu shukriga iyo sujuudu tilaawa ta qur-aanka la akhriyayo haddiiba aad sujuuddo shaydaanku dhinac buu baxa wuu ooyaa wuu ilmeeyaa wuxuu odhanayaa yaa weyli aniga hoogayga umirtu bisujuudi faabaytu faliya annaar wa umira bna aadamu bisujuudi faataaca falahu ljanna waanu kala leexanagay annagii aadamihii waxaa la yidhi sujuud wuu yeelay jannuu helaya anna sujuud baa la yidhi waan diiday saasaa naar ku gelaya sujuudduna waa waxyaalaha inagaga baxsada wey marka waxaan ku soo afmeerayaa walaalayaal shaydaanku shaqadiisuu haystaa innaguna inay shaqadeenna haysanaa baa la rabaa kaabigaynu isugu jirnaayo waa isu gabbanaynaa inaanu kaalag helin oo aanu kuu tog helin oo aanu xeeladiisa kula helin oo aad barato asaaliibtiisaa la rabaa ilahay waxaanu weydiisanaynaa allah inaga ilaaliyo xeeladiisana allah inaga ilaaliyo dembigeenna allah ha dhaafo dembiga waalidkeena allah ha dhaafo cirka madda khayr qaba allah inooga shubo dhibaatooyinka